Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Akhyaarta qiimaha iyo qayaalow kusoo dhawaada Higgs Technology. Anigana waxaan ahay Maxamed Xirsi. Muuqaalkan maanta waxaan ku sharixi doonaa Adobe Illustrator tool ka mid ah toolashiisa oo loo yaqaano Shape Builder. Toolkan oo ah tool aad loo isticmaalo markan loo joogo creativity-ga iyo design-ka ayaan maanta ku sharixi doonaa. Waxaan rajeynayaa muuqaalkan inuu yahay muuqaal aad sugaysay. Haddii aad xiiseynaysid in aad barato qaabka loo isticmaalo Shape Builder, fadlan muuqaalkan sii daawo. Sida hore idinkugu sheegay maanta muuqaalkeena waxa uu ku saabsan yahay sida loo isticmaalo Shape Builder. Shape Builder waxa uu leeyahay ilaa iyo 4 mode ama 4 qaab oo loo isticmaalo. Mode-ka koowaad ama qaybta koowaad oo uu leeyahay Shape Builder waxa weeyaan oo lagu magacaabaa Merge Mode. Yacni macnaheeda maxay tahay? Waxaa soo qaadayaa kan toolkan halkan ayaa soo dhigaya waa ellipse tool. Kadib waxaan kordhinayaa opacity-ga oo stroke-ga. Kadib halkan ayaa waxaan ka koobiyeynayaa mid kale. Sidaas ayagoo isku haysta ayaa ka koobiyeynayaa for example. Kadib waxaan sameynayaa kaba soo qaad mid ka mid ah ayaa yareynayaa sidaa oo kale ka dhigayaa. Okay, highlight ayaa wada saarayaa. Waxaan tegayaa halkan anase toolka loo yaqaano Shape Builder. Halkan markaan imaado geeskas ayaa tegayaa sidaas ayaa ugu sii deynayaa. Kadib maxaa dhacday? Wuxuu abuuray hal tool amase hal shape ayuu abuuray. Marka horena waxay ahaayeen laba shape. Kaas waxaa lagu magacaabaa Merge. Midka labaad waxaa lagu magacaabaa Extract Mode. Extract Mode macnihiisa maxay tahay? Waxa weeyaan in laba shape laga soo dhex saarto shape kale. For example, kan ayaa isticmaalayaa halkan ayaa soo dhigayaa. Halkan ayaa soo dhigayaa shape-kan. Kadib waxaa sameynayaa mid kale ayaa ka koobiyeynayaa aniga oo sidaas ugu dhaweynaya. Kadib highlight ayaa wada saarayaa. Markaa sidaas highlight u wada saaro waxaa tegayaa halkan amase meesha ay ku qoran tahay Shape Builder. Kadib kuwan ayaa u imaanayaa mid ka mid ah ayaan kili ku siinayaa. For example, kaas dhexe ayaa ku dhuftay. Marka kaas dhexe ku dhuftay haddaa soo qaado had u imaado waxaa ii soo baxaya shape kale oo gooni ah. In laba shape kale laga dhex sameeyo ayaa waxaa loo yaqaanaa Extract Mode. Mode-ka saddexaad ee uu leeyahay Shape Builder-ka waxaa lagu magacaabaa Eraser Mode. Eraser Mode maxaa la wadaa? For example, waxaan soo sameeyay tool-kan oo ellipse tool lagu magacaabo ayaa soo qaatay mid kale ayaa ka koobiyey. Sidaas oo kale ayaa aga koobiyey. Kadib waxaan sameynayaa highlight ayaa wada saarayaa labadooda. Waxaan tegayaa kan. Kadib aniga oo alt haya ayaan geeska ka imaanayaa. Calaamadaas markay minus ku bedesho in geeska ka imaanayaa geeska kale ku tagay. Intaas waxaa ku sameeyay shape bisha oo kale ah. Waxaana lagu magacaabaa eraser. Waxaana loo isticmaalaa amase lagu dhisaa toolkan lagu magacaabo Shape Builder. Adigoo alt haysid ayaa isticmaali doonta. Mode-ka afraad waxaa lagu magacaabaa Creative Mode. Amase adiga mid aad abuurinaysid. For example, ellipse tool ayaa soo qaaday. Wareeg ayaa halkan soo dhigay. Mid kale ayaan ka koobiyey anigoo isku dayay inay si fiican isku dhignaadaan. Kadib waxaan sameynayaa waa soo koobiyeynayaa mar labaad. Si fiican inay isla ekaadaan ayaan rabaa. Kadib highlight ayaa wada saarayaa. Kadib waxaan tegayaa toolkan anase Shape Builder. Kadib highlight ayaa sidaas meelaha u saarayaa. Kadib waxaa sameynayaa qaybta kale ee kore ayaa iska daleedayaa. Waxaa ii soo baxay shape nooc kale ah ayaa abuurtay. Taasna waxaa loo yaqaanaa Creative Mode. Haddaba haddii intaas aan abuurnay ka waran haddii aan abuurno waxyaabaha aan isku dhex qasnay ama shaybo badan oo adag oo isku dhex qasnay oo noocan oo kale ah. Si aad si fiican ugu sii fahantid waxa loo yaqaano toolkan loo yaqaano Shape Builder. Okay, aan isku dayno kan inta noo dhig. Okay, kan oo kale ayaa sameynaynaa ubaxaas. Okay, aan tagna halkan aan soo qaadano toolkan loo yaqaano Rectangle Tool. Kadib halkan ayaa soo dhiganayaa afar gees ayaan ka dhigayaa anoo shift haya. Kadib waxaa dooranayaa Direct Selection Tool. Direct Selection Tool ayaa dooranayaa. Hal mar anoo shift haya ayaa falaarta kili gees ku siinayaa. Dhinac kale sidoo kale falaarta midig iyo shiftiga ayaa isla qabanaya. Intaas markaa sameeyo waxaan dooranayaa mar kale Rectangle Tool. Kadib halkan ayaan sidaas ka dhigayaa.
markaas sidaas ugu abuuro mid kale ayaan ka koobiyeynayaa hoostaas ayaan dhigayaa kadib all highlight ayaa saarayaa waxaan tegayaa shape builder kadib alt ayaan qabanayaa minus markay isku bedesho geeskaas ayaan ka bilaabayaa ilaa geeska kale dhexda ayaa ga baxayaa kana sidoo kale stepkii oo kale ayaan sameynayaa okay intaas markaan sameeyo kan ayaa u imaanayaa group ayaan leeyahay mar kale ayaan tegayaa halkan tool kadibna waxaa tegayaa ellipse tool markaan tago highlight ayaa sidaas waxaan sameynayaa wareeg circle kadib mar kale ayaan ka koobiyeynayaa circle-ka anigoo ku dhejinaya islana ekeysiinaya okay kadib highlight ayaa wada saarayaa waan kasoo koobiyeynayaa mar kale halkan ayaa isku keenaya okay highlight ayaa wada saarayaa marka sidaas highlight wada saaro waxaan tegayaa shape builder kadibna hal mar ayaan sidaas u adeegsanayaa inaan shift inta qabto ayaan leeyahay isku dheji hal mar kadib sidaas ayuu isku dhejinayaa markuu sidaas isku dhejiyo waxaan sameynayaa halkan ayaa tegayaa rectangle tool ayaan soo qaadanaya calaamad yar oo khafiifa ayaan sameysanayaa kadib hal mar ayaa highlight wada saarayaa waxaan isticmaalayaa alignmentiga kadibna centerka ayaan leeyahay kadib kan ayaan ku dhufanayaa sidaas ayaa u qalloocinayaa miyaynan ubax u ekayn okay aan isticmaalno mar kale oo aan taga ellipse tool ayaan soo koobiyeynayaa halkaan ku sameynayaa kadib waa ka koobiyeynayaa sidaas markaa u sameeyo highlight ayaa wada saarayaa kadib waxaan tegayaa shape builder kadib halkaas ayaa hal mar keli ku siinaya okay waxaan kasoo qaadanayaa qaybtaas kadib in yar ayaa sidaas u qaloocinaya kadib halkan ayaa soo dhiganaya right click ayaan kor leeyahay transfer ayaan leeyahay reflect ayaan leeyahay kadib preview ayaan leeyahay copy ayaan leeyahay kadib halkan ayaa usoo qaadayaa waana ka yareynayaa kii hore okay kadib tan ayaa highlight garaynaya waan delayda marka intaas sameeyo highlight ayaa wada saaraya halkan ayaa imaanaya ka wada rectangle tool ayaa dooranaya markaas ayaa centerka waxaan ka sameynayaa calaamad noocaana kadib highlight ayaa wada saaraya okay sidaas ayaa highlight u wada saaraya waxaan tegayaa shape builder midka koowaad ayaa soo qaadanaya alt ayaa qabanaya geeskan ayaa kasoo bilaabaya kadib waa goynaya intaas markaan sameeyo qaybtan ayaa keli ku siinaya mar kale ayaa qaybtan ku dhufanaya qaybtan wixii geeskan dhan aan ku dhufanaya kadib halkan ayaa imaanayaa meesha kalarka laga bedelo kadib kalarkii kala dhagka ah ayaa dooranaya okay kadib waa sidaas in yar ayaa ii dhiman haddaan doonaa ka sameyn karnaa highlight kan ayaa soo qaadanaya ellipse tool halka centerka ayaa dhigayaa waa soo qurxinayaa kadib tan highlight ayaa wada saarayaa ellipse waxaa dooranayaa shape builder alt ayaa qabanayaa waa ku dhufanayaa okay hadda waxaan sameynay ubax waxaan ku sameynay Adobe Illustrator marka shape builderka waa midka waxyaabaha ugu awooda badan ayuu ka mid yahay oo loo isticmaalo Adobe Illustrator waxaan rajeynayaa casharkan inaad ka bogateen fadlan share subscribe iyo like intaba yaa laga baqaylin channelka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.